24 saacadood kadib maxaa ku dhacaya jirkaaga haddii aad joojiso sonkorta? Ma ogtahay in sonkortu ay 8 jeer ka balwad badan tahay maandooriyaha kokainka? Haddii aad u malaynayso inay tahay kaliya wax macaan, dhab ahaantii waa sun cad oo burburinaysa unugyadaada. Laakiin ma ogtahay waxa dhacaya haddii aad maanta joojiso? Haddaba isbeddelkan ayaa bilaabanaya 24 saacadood gudahood. 8 saacadood kadib marka aad ka fogaato sonkorta, maskaxdaadu waxay bilaabaysaa in ay soo laabato. Ma jiro sugar crash ama cajiskii cuntada kadib. Heerka sonkorta dhiigaaga ayaa bilaabaya in ay degaan. Waxaadna dareemaysaa firfircooni maskaxeed oo ka duwan tii hore. 24 saacadood kadib marka aad ka dheeraato sonkorta. Tani waa mucjisada koobaad. Beerkaaga ayaa bilaabaya in uu sifeeyo dufankii ku ururay. Jirkaaga wuxuu bilaabayaa in uu gubo baruurta kaydsan halkii uu u gudbi lahaa sonkortii aad soo cuntay ama uu gubi lahaa sonkortii aad soo cuntay. Waa bilowga safarkaaga miisaan dhimista dhabta. 3 maalmood kadib marka aad ka dheeraato sonkorta, dagaalka macmacaanka waa uu dhammaanayaa. Rabitaankii waalida ahaa ee aad u qabtay shukulaatada, buskudka, xalwada iyo macmacaanka oo idil waa uu yaraanayaa. Neefsashadaada ayaa hagaagaysa. Waxaadna dareemaysaa in dhadhankaaga dabiiciga uu soo laabanayo. 7 kadib ama 1 isbuuc kadib marka aad ka dheeraato sonkorta, maqaarkaaga ayaa bilaabaya inuu isbedelo. Sonkortu waxay keentaa caabuqa maqaarka, inflammationka ama finankii wejiga raalli ahaada ayaa bilaabaya in ay baaba'aan. Bararka indhaha hoostooduna waa uu yaraanayaa. Waxaad u muuqan doontaa mid ka dhalinyarsan sidii hore. Difaaca jirka maxaa ku dhacaya marka? Ma ogtahay in 1 qaando oo sokor ah ay curyaaminayso difaacaaga jirka muddo 5 saacadood gudahood? Isbuuc kadib marka aad joojiso, ciidanka difaaca jirkaaga, gaar ahaan white blood cellska, ayaa noqonaya kuwo 40% ka xoog badan sidii hore. Haddaba dhanka hurdada iyo waxyaabaha isbeddelka ee sonkorta marka aad ka fogaato aad markaasi ka dhaxli karto waxaa ka mid ah, maadaama aysan jirin sonkor khalkhal gelinaysa hormoonka cortisolka, hurdadaadu waxay noqonaysaa mid qoto dheer. Waxaad subaxdii soo toosaysaa adigoon u baahnayn kafay ama bun aad ku soo kacdo. Caloosha oo yaraanaysa. Sonkorta waa saaxiibka koobaad ee baruurta caloosha ee belly fatka. Markaad joojiso, biyaha dheeriga ee jirka ku xidhnaa waa ay baxayaan. Calooshaaduna waxay bilaabaysaa in ay gudaha u noqoto si muuqato. Xasuusta iyo garashada. Foggy brain ama jahwareerka maskaxda ayaa meesha ka baxaya. Waxaad ogaan doontaa inaad wax walba si dhaqso ah u xasuusanayso, sababtoo ah unugyada maskaxdaadu hadda waxay helayaan shidaal nadiif ah oo aan ahayn sonkor warshadaysan. Dhinaca caafimaadka wadnahana, dhiigkarkaaga ayaa hoos u dhacaya dhowr dhibcood. Sonkortu waxay dhibtaa derbiyada xididada dhiigga, laakiin marka aad joojiso, xididadu waxay noqonayaan kuba dabacsan oo dhiiggu si fudud u maro. Dhaqaalahaaga. Marka aad joojiso iibsashada cabitaanada, buskudka, macmacaanka, doorshada iyo xalwada, kaliya caafimaad ahaan ma dareemaysid isbeddel, balse boorsadaada ayaa buuxsamaysa. Waa maalgashi labada dhinac ah, niyadda iyo farxadda ama moodka. Inkasta oo sonkortu marka aad cunto ay ku siiso farxad ku meel gaar ah, haddana waxay keentaa niyad jab iyo welwel. 7 kadib, niyaddaadu waxay noqonaysaa mid degan oo dabiici ah. Keliyahaagana waxay helayaan nasasho weyn maadaama aysan jirin sokor badan oo dhiigga ku jirta oo ay tahay inay sifeeyaan. Khatarta dhabar xanuunka iyo kaadida badan ee habeenkii waa ay yaraanaysaa. Ilkaha iyo ciridkana, bakteeriyada afka ku jirta waxay quudataa sonkorta. Marka aad goyso, waxaad badbaadinaysaa ilkahaaga. Ciridkaaguna wuxuu noqonayaa mid caafimaad qab oo aan markaasi dhiigaynin. Dhalinyaranimo joogta ayaa noqonaysaa. Sonkortu waxa ay burburisaa maadooyinka collagenka iyo elastin ee maqaarka adkeeya. Joojinta sonkortu waa botox midka ugu raqiisan ee aad weliga markaasi heli karto.
xubnaha tarankana rag iyo dumarba sonkor la'aantu waxay kor u qaadaa dheelitirka hormoonada galmada, taasi oo soo celisa firfircoonida iyo rabitaanka dabiiciga ee luntay. Dhadhanka cuntada, waxaad bilaabi doontaa inaad dhadhamiso macaanka dhabta ah ee ku jira tufaaxa, qudaarta iyo xitaa caanaha. Afkaaga ayaa dib u dhalaalaya, lafaha waxay noqonayaan kuwo xooggan. Haddaba, sonkor badan waxay jirka ka saartaa macdanta calciumka. Marka aad joojiso, lafahaaga ayaa noqonaya kuwo adag, waxaadna ka badbaadaysaa xanuunka kala goosyada, gaar ahaana arthritis-ka, rheumatism-ka iyo xanuunada badan. Noloshaadu way isbedelaysaa. Cilmi baaris ayaa muujisay in dadka iska daayay sonkorta ay noolaadaan celcelis ahaan 10 sano oo ka badan dadka kale, iyagoo ka fogaanaya amaba inta badan aan la kulmaynin xanuunada raaga. Marka su'aashu ma aha maan joojin karaa, ee waa miyaan rabaa inaan noolaado. Isbedelka waxa uu ka bilaabmayaa koobka hadda hortaada yaalla. Ma ku dhiiran kartaa inaad maantaba bilowdo in aad ka caaganto amaba ka dheeraato isticmaalka sonkorta? Haddaba, maskaxda iyo qaabka sonkorta ay u saameyso haddii aan u soo noqonana, marka sonkorta la joojiyo, maskaxdu waxay ka baxdaa nidaamkii degdega ee ku tiirsanaa tamar degdeg ah, waxay u wareegtaa isticmaalka tamar ee degan, fat iyo ketones, taasoo keenta feejignaan dheeri ah, go'aan qaadasho sax ah, iyo khaladaadka fikirka oo hoos u dhaca. Calool fayoobanaanta oo markaasi noqoto mid xooggan oo hagaagaysa, gaar ahaan gut health, caafimaad qabka caloosha. Sonkortu waxay quudisaa bakteeriyada xun ee caloosha. Marka aad joojiso, bakteeriyada wanaagsan ayaa tarmaysa, calool fadhiga iyo gaaska waa ay yaraanayaan, jirkaaga si fiican ayuu u nuugayaa nafaqooyinka. Calooshaadu waxay noqon kartaa xarun caafimaad halkii ay ka ahaan lahayd il xanuun. Caabuqyada qarsoon, gaar ahaan xanuunada kala geddisan ee aan la dareemaynin oo inta badan kor u kaco, kuwaasi oo loo sababayo isticmaalka joogtada ee sonkorta. Dad badan waxay qabaan caabuq qarsoon oo sababa daal joogto ah, xanuunka kala goosyada, miisaanka oo qofka sare u kaco. Joojinta sonkorta waxay si tartiib ah u damisaa dabkan qarsoon adigoon wax xanuuna dareemin. Sonkorta badani waxay saameysaa xididada yaryar ee indhaha. Marka la joojiyo, aragga waa uu sii iftiimaa, daalka indhaha waa uu yaraadaa, halista xanuunada indhaha mustaqbalkana hoos ayay u dhacaan. Dhididka iyo urta oo isbedesha. Dhididka waa uu yaraadaa, urka jirkana waa uu isbedelaa, nadaafad dabiici oo dhanka jirka ayaa kor u kacaysa. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan aan ku eegaynay faa'iidooyinka iyo isbedelka qofka uu dareemi karo marka uu ka dheeraado sonkorta, iyada oo markaasi lala jaanqaadayo caafimaadka aadanaha qofka uu u baahan yahay. Guud ahaanna intaa ayuu inoogu egyahay muuqaalkeena.